السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي صباح وناكسن meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbixino wixii aydan ka haynay ciyaaraha saaxiibayaal kulamada maanta jira ee horyaalka Premier League oo xamaasad gooniye leh ayaan saaxiibayaal halkan kusoo gudbin doonaa haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar like-ta iyo share-ta nagu dhiirigeli waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga caawa waxaa ballansan kooxda kubadda cagta Chelsea iyo Manchester United kulankan kulanka ugu adag horyaalka Premier League isbuucan waxaana kooxda ku dhashay Stamford Bridge soo dhaweynaysa kooxda lagu magacaabo Siyaatiinta Cascas oo kooxaha ugu weyn horyaalka Premier League sida Arsenal, Manchester United, Liverpool iyo Tottenham kusoo qaraacday maslaxa riyada laakiin waxay ka soo xaadirnaysaa garoonka lagu magacaabo Stamford Bridge halkii saac iyo barka markay tahay Geeska Afrika kulankan ayaa wuxuu yahay kulan xamaasad leh maadaama labadan kooxood ay ku jiraan kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad sanadkana foonkooda uu aadna u fiicnayn meel laxaadna iska yahay halka kooxda Manchester United ciyaarihii lasoo dhaafay ee horyaalka Premier League ayaa ahayd bardhac iyo guulo ay soo gaaraysay laakiin kooxda Chelsea oo ku soo laabatay wadada guulaha ayaana caawa kulansanaya kulankan waxaa la sheegayaa in laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo iyo Casemiro keedka lagu sii hayn doono maadaama laga kulankii hore ee kooxda Tottenham ay ku soo boqotay garoonka maslaxa riyada kooxda Manchester United kulankaas laacibka lagu magacaabo Ronaldo uu iska baxay maadaama 90 daqiiqo ee ciyaarta kursiga keedka uu ka hayay tababaraha Manchester United marka saaxiibayaal kulankan kulan af miiran ayuu noqonayaa kulan xamaasad ayuu noqonayaa marka labadan kooxoodna waa laba kooxood oo mar walba isku leh taariikh oo kooxda Chelsea waxay tahay mar walba tan ku awood badan gurigeeda lagu magacaabo Stamford Bridge marka kulankan saaxiibayaal waxyaabihii laga yiri ayaa ku soo gudbin doonaa waxay u badan tahay boqolkiiba konton inay labadan kooxood bridge ay galayaan maadaama kooxda Chelsea awood ay ku jidho Manchester United aysan hayn halka kooxda Manchesterna ay tahay koox ayaduna aad u liidata oo aanan macna ciyaaryahan tayle ama ciyaaryahan sanadkeedu aysan aad u kacsanayn marka qaab ciyaareedka ku jira labada kooxood waa laba kooxood sanadkan aanan foom fiican aan ku jirin maadaama labadan kooxood ay guul darooyin badan ay bilowga horyaalka Premier League iyo Champions League iyo Euro League ba ay ka soo gaareen marka saaxiibayaal kulankan wuxuu ka dhici doonaa Stamford Bridge kulankana kule waxaydiisa wata weeye labadan kooxood kooxdii rees ayaa waxay gali doontaa waxay aadi doontaa baalkii afarta ugu sarreeya ka mid noqon doontaa maadaama ognahay kooxda Chelsea iyo kooxda lagu magacaabo Manchester United farqiga dhibcaha u dhaxeeya yahay farqi aad u kooban maadaama ay ku kala jiraan kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad marka sanadkan labadana ka dadsan tahay oo ma fiicna foonkooda aad ma fiicna oo macnaha walwal badan ayaa macnaha jamaahiirta labada kooxoodna ay caawa isku hayn doonaan maadaama aan la ogeyn kooxda guuleysan doonta kooxda macnaha saddexda dhibcood ku qaadan doonta Stamford Bridge ma laga yaabaa Manchester United inay afarta ama saddexda dhibcood ay ku qaataan Stamford Bridge waa macquul maadaama ognahay inay counter attack fiican ay dheelaan halka kooxda Chelsea aysan foonkoodu aadna ugu fiicnayn marka saaxiibayaal wararkeena subaxnimo ee aroornimo intaas ayaan kusoo gabaynaa waa ku mahadsantihiin saaxiibayaal.